lantuucan wanaagsan daawadayaal dilkiin meel walba joogtaan ku soo dhawaada warka Rajo Qaran TV qodobadaas ku daawan doontaan warka Rajo Qaran TV waxa ka mid noqon doona mas'uuliyiinta hay'adaha amniga oo maanta hortagaya golaha shacabka shir looga hadlayo arrimaha gargaarka degdega oo ka socda magaalada Muqdisho ehelada bajaajle lagu dilay Muqdisho walaa xoogan muujiyay shirweyne looga dhawaaqay gobolka Banaadir kadib dilalkii ka dhacay saraakiil iyo askar loo xiray iska horimaadyadii ka dhacay magaalada Muqdisho iyo madaxweynaha Falastiin oo ku dhawaaqay xukuumad cusub intaasi waxay hayeen qodobada ugu door corona aad ku daawan doontaan warka Rajo Qaran TV haatan u diyaar garooba inaad daawataan isagii oo fidsan halkani waa Rajo Qaran waa channel news and information is all over the world what are you talking about look وعنكوا ورر يا الأخبارات أنا أعرف اللغة العربية شوف الأخبارات العالمية التطور سواء مركب عنكوا له سبسكرايب ده إيه كذا ولي هذا الصور كان مشغول كأي حاجة ما كذا بقول بدي سبسكرايب ماذا هذا حتى سبسكرايب بحق أي حاجة لو راعي لو هذا مشغول كتاعي سواء مركب سبسكرايب ليه شو ما نجرب ورجع قرن بالي أنا أريد كل شيء إني دكوينه هذا نقول الله يا أبيك فلاش صادق سادي رزقنا رجع قرن كل حكمه سأعطيها شو every word about every current news all over the world باكسين وطا taariikhdu waxay tilmaamaysaa 14 bisha afraad sanada 2019 aynu ku bilawnay Sayid Ali Maxamed Mustafa oo abtiga wada mooto bajaaj uu shalay askari ka tirsan ciidamada dawladda sheegay wiilka lagu dilay oo xubin muhiim ka ahaa caawinta qoyskiisa waxa uu kaalin sare kaga jiray biilka qoyska isagoo lacagaha uu ka shaqeeyo mooto bajaajta uu ku biili jiray 10 ruux oo ay ku jiraan labadiisa waalid ayuu yiri Sayid Ali Maxamed Mustafa ayaa waxa uu sheegay in Maxamed Cabduqaadir Cabdullaahi uu ahaa wiil uu isaga soo korsaday ruux kale ee mootada saarnaana uu ahaa abtigiis isla markaana uu aabihi ahaa qof qaba cudurka dhiikarka dhinaca kale Sayid Ali Maxamed Mustafa ayaa waxa uu sheegay in walaac badan ay ka qabaan in cadaalada la marsiin doono askarigii dilka u geystay wiilashooda taliska booliska ayaa waxa ay sheegeen in aan wali gacanta lagu soo dhigin askarigii dilka geystay hayeeshee la soo qabtay taliyihii aagaasi dhinaca kalena xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maanta waxay kulan muhiim ah ku yeelan doonaan xarunta golaha shacabka ee magaalada Muqdisho kulanka xildhibaanada ayaa waxaa hortagaya mas'uuliyiinta hay'adaha amniga dawladda iyadoo uu yahay kulan albaabadu ay u xiran yihiin oo wax warbaahin loo ogoleen wasiirada gaashaandhigga iyo amniga taliyayaasha ciidamada dawladda ayaa maanta xildhibaanada golaha shacabka waxay su'aalo ka weydiin doonaan xaaladda amniga dalka oo muddooyinkii dambe ay ka dhaceen qaraxyo iyo dilal qorsheysan Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo ah gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka ayaa kulankii shalay ee waqti dambe la isla gaaray ee xildhibaanada ayaa sheegay in kulanka maanta uu yahay mid albaabada u xirnaan doonaan isla markaana saxaafadda ay dibadjoog ka noqon doonto magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay falal amni daraac iyadoo shalay ay ugu dambeysay gudaha magaalada ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata kuwaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo mid hantiyadeed inta badan kadib markii askari ka tirsan ciidamada dawladda uu toogtay darawal mooto bajaaj iyo wiil dhalinyaro ah oo la socday geesta kalena taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay dhacdooyinkii ugu dambeeyay saacadii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho in loo soo qabtay saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyagaas Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko oo shir jira id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay dilkii shalay subax loo geystay isgoyska Holudaag ee gobolka Banaadir ka dhacayna darawal mooto bajaajla iyo wiil la socday waxa uu tibaaxay taliyaha in dilkaas oo ahaa mid fool xun uu geystay dable Ibrahim Maxamed Umar oo ah askari ka tirsan ciidanka booliska isla markaana hay'adaha amniga ay gacanta ku soo dhigi doonaan iyadoo haatan uu xiran yahay taliyihii mas'uulka ka ahaa aaga uu falka ka dhacay waxa kale oo uu xusay taliyaha Ameerika in askarigii fal dambiyeed geysta oo isagu gacantiisa ku dila qof shacab sharciga lala tiigsan doono isagoo aan helin wax gabaad ah dhinaca kale taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya Sareeyagaas Bashiir Cabdi Maxamed ayaa tilmaamay in iska horimaadyadii magaalada Muqdisho ku dhex maray labadii maalin ee la soo dhaafay ciidamo ka tirsan dawladda loo xiray saraakiil iyo askar lagu tuhunsan yahay inay ku lug leeyihiin falkaas kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac magaalada Muqdisho waxa ay hoy u noqotay labadii maalin ee la soo dhaafay dhacdooyin kala duwan kuwaasi oo geystay khasaare nafeed shir wada tashi oo ku aadan ka jawaabista gargaarka degdega una dhaxeeya madaxda wasaaradaha gargaarka heer federaal iyo heer dawlad goboleed ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho kaasi oo socon doona muddo 2 cisho shirkan inta uu socdo waxaa diiradda lagu saari doonaa arrimaha la xiriira fulinta mashaariicda ka jawaabista gargaarka degdega iyo maareynta musiibooyinka Cabdinaasir Cabdi Caruush oo ah wasiirka gargaarka Koonfur Galbeed oo ku hadlayay magaca maamul goboleedyada ayaa soo dhaweeyay
qabsoomida shirkan waxa uu naxusay inay kala shaqeyn doonaan wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya sidii looga jawaabi lahaa baahiyaha bini'aadanimo ee ka jira dalka iyo ka hortagga abaaraha laga cabsi qabo. wasiirka xigeenka gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamuud ayaa si guud u faahfaahiyay ajandaha shirkan wuxuuna wasiirka xigeenka intaa ku daray in mashruucu uu yahay mid horay heshiiskiisu ay u gashay wasaaradda gargaarka Soomaaliya haatan loo baahan yahay oo kaliya in la fuliyo. ugu dambeyntii mudane Xamse Saciid Xamse wasiirka gargaarka dowladda Soomaaliya ayaa bogaadiyay mir dhalka shirkan inta uu socdo isagoo ku tilmaamay mashruuc mid gaar ah oo ahmiyad gaar ah u leh guud ahaanba dalka una sahlaya in laga jawaabo baahiyaha gargaar ee ay qabaan shacabka Soomaaliyeed iyadoo la kaashanayo hay'adaha caalamiga ee dhinaca gargaarka. dhinaca kalena Imaam Maxamed Yuusuf Cali oo kamid ah odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ayaa ku dhawaaqay shirweyne lagu qabanayo magaalada Muqdisho kaasi oo looga hadlayo dhibaatooyinka ka jira magaalada caasimadda ee Muqdisho. waxa uu walaac xoogan ka muujiyay dhibaatooyinka dilalka u badan ee ka dhaca magaalada Muqdisho gaar ahaan dilkii u dambeeyay ee darawal mooto bajaajla iyo abtigiisa oo shalay lagu dilay agagaarka isgoyska Alwadaag ee gobolka Banaadir. waxa uuna dalbaday in askarigii dilka sharciga la hor keeno isagoo warbaahinta kula hadlayay Muqdisho waxa uu sheegay in marnaba aysan aqbali karin haddii ay yihiin odayaasha dhaqanka dilalka had iyo jeer ka dhaca Muqdisho isla markaana la qaban doono shirweyne looga hadlayo. Imaam Maxamed Yuusuf Cali ma shaacin nooca uu noqon doono shirweynahaas iyadoo la wada ogyahay in magaalada Muqdisho aysan lahayn matalaad gaar ah iyo maamul ay iyagu doorteen oo madax banaan. halkaad warkaasi ka daawanaysaan waa Rajo Qaran TV. madaxweyne Maxamuud Cabbaas Abu Maazim waxa uu ku dhawaaqay xukuumadda ay garwadeen ka yihiin xisbigiisa Al-Fatah ee muddada dheer hayay talada maamulkaasi oo gacanta ku haya dhulalka danta guud ee la haysto. xukuumadda cusub oo ka kooban 22 wasiir waxaa ra'iisul wasaare ka ah Maxamed Shateya iyadoo madaxa dhaqdhaqaaqa Xamaas ee ka taliya deegaanka Marinka Gaza ay mucaaradeen magacaabistaasi. 5 kamid ah xukuumadda cusub waxa ay kamid yihiin xukuumaddii hore oo iyagu wali haya xilalkooda waxaana kamid ah wasiirka arrimaha dibadda Riyad Al-Malik, wasiirka maaliyadda Shukri Bishara, warfaafinta Nabil Abu Rudayna, wasiirka dalxiiska Rolaya Maya iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Sayid Abu Amir. xukuumadda cusub ee Falastiin ayaa la dhisay kadib markii uu ra'iisul wasaarihii hore Rami Hamdallah uu iska casilay xilkaasi bishii Janaayo ee la soo dhaafay. waxaana salaadiisi timid kadib markii lagu guuldareysay wadaxaajood dib u heshiisiin oo u dhaxeeyay xisbiga Al-Fatah iyo dhaqdhaqaaqa Xamaas. si kastaba ha madaxweynaha maamulka Falastiin Maxamuud Cabbaas oo 83 jir ayaa waxa uu xilka hayay tan iyo sanadkii 2005. guudaan warkii aad ka daawanayseen TV-ga Rajo Qaran TV aqeeyay wanaga inta hadba si aad u hesho wixii warar ay ku soo kordhagay Soomaalida iyo daafaca caalamka. subscribe saaro Rajo Qaran TV.